الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سيدي وتمناد يدروس إني بشهر محرم بإذن الله تبارك وتعالى قيبتان النور لمن وحان إن شاء الله كسو جبينينا qofku maadaamuu bishii sanadka aan ku jirno ugu horeysay islaamka inaynu qofku uu xisaabtamo oo uu isxisaabiyo naftiisa uu xisaabiyo uu hadda sanad cusubbaa u dhashay mid kalena waa dhammaaday uu xisaab uu hawshiisa ugu socoto biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. xisaabta walaalayaal qofka muslimka ah waxaa lagama maarmaana inuu xisaabiyo naftiisa, aqwaashiisa iyo hadalkiisa inuu xisaabiyo, ficilkiisa inuu xisaabiyo, hadduu safar yahay iyo hadduu negi yahayba inuu xisaabiyo, acmaasha kasoo fulaysa hadday ku tacalluqda dhammaan biddiini waddunyaa adduun iyo aakharaba inuu xisaabiyo, waxa isaga ku tacalluqaya inuu xisaabiyo, waxa dadka kale ee walaalihii kala dhexeeya inuu xisaabiyo. taasaa waxay tahay waddada ugu habboon inuu qofku ka badbaado naarta. muxaasabaduna waa waxa qofku uu ku badbaado inuu habeen walba uu xisaabtamo. tacriifka iyo muxaasabada markii la yidhahdo hala qeexo, culimmadu waxay yidhahdeen muxaasabadu waxa weeye qofku inuu fiirfiiriyo habeenkii wixii ka dhacay maanta wixii kaa dhacayna inaad fiirfiiriso caawa. haddii aad aragto inuu wax fiican yahay kusii soco, haddii aad aragto inuu waxun yahayna ka daba tag hadday suuragal tahay in laga daba tago. hadday suuragal noqon weydo wixii kaa dhacayna waa inaad xasanaadka iyo wanaagga aad ka dabageyso si ay wixii u tirtirta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. ina alxasanaati yudhibna asayi'aat. wanaaggu ilan wuxuu tirtiraa xumaanta wuu tirtirayaa. muxaasabada qur-aanka iyo sunnadaba marka la fiiriyo, yacni in la isxisaabiyo qofku uu baraarugsan yahay, waxaa la yidhaahdaa la-aanteed lama badbaado. rabbi wuxuu leeyahay yowma yabcahuhum allahu jamiican fayunabi'uhum bima camiluu axsaahu allahu wanasuuh wallahu calaa kulli shayin shahiid. maalinta qiyaamo rabbi subxaanahu wa tacaala ina soo bixin doono, laynoona sheegi doono wax walba oo wixii aan samaynay ah. shaygaasi shay la koobay weeye, xisaab buu ku socdaay ogow. wal axsaahu allaahu, ilaahay waa koobay, waa wax xisaabsan. haddaba xisaabtaas iyada ah qofka rabbi waa wuxuu leeyahay yowmaidin yasduru nnaasu ashtaatan liyurow acmaalahum faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah. wax alla wixii kaa soo fulay ee wanaag ahaa meel buu kuu yaallaa, waana arki doontaa. wixii xumaan ahaa oo kaa soo fulay isna meel buu kuu yaallaa, waana arki doontaa. rabbi wuxuu leeyahay yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suuءin tawaddu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah wallahu ra'uufun bilcibaad. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo maalin baa jiri doonta baa la yidhi, naf walba ay arki doonto wixii ay shaqaysatay oo diyaar ah meel loo dhigay. markaa naftu waxay tamaninaysaa wixii xumaanahay oo ka dhacay in laga fogeeyo oo aynan arkin ayay dooni lahayd, oo qofku xumaantiisiiyo isaga la kala qariyo. muxaasabada walaalayaal in la isxisaabiyo waxay ka timaadaa iimaan bilyowmi alaakhir, inuu qofku rumaysan yahay ayay ka timaadaa. qofku waa inuu xisaabiyo waxa kasoo fulaya. waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allahi huma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. waxaa la rabaa inuu qofku maalintaa qiyaamo ee imaan doonta ay maskaxdiisa ku jirto ee uusan ku xisaabtamo mar walba. haddaba muxaasabada waxaa la yidhaahdaa waa dariiqa iyo waddada dadka mu'miniinta ah, waa calaamada dadka muwaxidiinta ee towxiidka haysta, waa cinwaanka iyo taytalka iyo wax lagu aqoonsado dadka alla ka baqa subxaanah. mu'minku waa qof rabbi ka baqa, waa qof naftiisa xisaabiya, waa qof dunuubtiisana istikfaar ka sameeya,
waa qof og naftiisu khatar inay ku tahay oy khatarteedu ay badan tahay, ay weliba ay makrigeeduna uu tiro badan yahay, sharteeduna ay dheer tahay. naftu maxaa jira, waa ammaara bisuu, xumaan bay qofka ya amartaa, waxay u iilataa, u socotaa hawadeeda inay raacdo, jahliga inay ku socoto, halaag inay u hogaamiso, lahwiga ciyaar inay iskaga dhex jirto. ilaa man raxima allah, in yar oo ilaahay subxaana watacaala dadka uu u naxariistay ma ogiye. hadduu qofku u daayo naftiisa inay hawadeeda ay daba socoto, waxay geynaysaa duqyaan iyo xumaan bay geyn, waxayna u hogaaminaysaa alqabaa'ix, waxyaabaha xunxun bayna ku hogaaminaysaa. rabbi wuxuu leeyahay subxaanah, faamaa man طagaa waaahara alxayaata addunya faina aljaxiima hiya alma'wa. marka haddii qofku uu naftiisa xumaanta u daayo, adduunyadana uu ka doorto aakharo, meesha uu ku gabagabooni waa ma'wa, waa naartaas ayay noqonaysaa. laakiin rabbi wuxuu leey, waamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa. dadkaas rabbi subxaana watacaala la kulanka rabbi ka baqay, una shaqaystay, naftoodana xumaantii ka reebay oo wanaagga ku hogaaminaya, jannada ayay noqon doonaa gurigoodu biidni illaahi tabaaraka watacaala. allahuma ijcalna minhum, ilaahay dadkaas jannadiisa oo ku martiqaadaya allah inaga dhigo, kuwa isxisaabiya oo naftooda u xisaabsan tahayna allah inaga yeelo. jazaakum allahu khayr, wbaaraka allah fiikum.